dowladda Iiraan waxa ay xoojisay digniinaha culus ee ay u dirayso kooxaha ka dhisan waqooyiga galbeed ee dalkaas ilaa Ciraaq ee Kurdida oo saacadihii dhawaa aad loo bumbuuniyay in Mareykanku u diyaariyay dagaal toos ah oo ay la galaan ciidamada Iiraan. bilowgii wargeyska ka soo baxa Mareykanka ee The Wall Street Journal ayaa wariyay macluumaadka ah in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si rasmi ah uga fiirsanayo nooca kaalmo iyo istiraatiijiyadeed ee Mareykanku qorsheynayo inuu siiyo kooxahan siba warbixinta lagu yiraahdo talada u dhaafiyaan inta hartay hoggaanka Iiraan. kooxaha gooni-u-goosadka ah ee doonaya dhismaha dawlad u gaara Kurdida ayaa xifaaltan siyaasi ah kala dhaxeeya hoggaanka dalalkan kontumeeyadii sano ee ugu dambeeyay, waxaana Mareykanka iyo Israa'iil u arkaan in fursad laga dhex tusi karo xaaladda Iiraanta ku howlan istifaaca rasmiga ah ee ay kula jirto Mareykanka iyo Israa'iil oo duulaanka ay dalkan ku qaadeen maalintiisii lixaad galay. xalay warbaahinta Mareykanka ee u janjeerta xisbiga talada haya ee dalkaas oo u muuqday inay xambaareen fariinta qusaysa doonista Trump ee howlgelinta kooxahan ayaa si xooggan u bumbuuniyay weeraro runnimadoodu yarayd oo ay sheegeen in kooxahan gaar ahaan Kurdida Ciraaq kaga tallaabeen xuduudda Iiraan. inkastoo hoggaanka Kurdida Ciraaq beeniyay jiritaanka warkan, haddana Iiraan waxa ay sheegtay inay isla xalayba duqeysay fariisimaha kooxahan sida laga xigtay telefishinka gaarka ah ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Iiraan waxa ay si cad kooxahan ugaga digtay inaysan fursad ka dhex raadeen xaaladda istifaac ee xilligan Iiraan ku jirto. dhibaatada kooxahan isku day kasta oo arrinta qusaysa ka soo gaari karta ayay Tehran ka digtay, waxaana hoggaanka Iiraan muujiyay ogaalkooda sarreeya ee la xiriira doonista Mareykanka iyo Israa'iil ee ah inay colaad gudaha ku furaan dalkan si loo badiyo furimaha dagaalka, iyadoo fursad la siinayo mucaaradka waqtiga dheer raajicinayay burburka kacaanka Iiraan. xogayaha sare ee amniga qaranka Iiraan Cali Larijani oo u digay kooxahan Kurdida ayaa yiri, waxaan uga digayaa kooxahan gooni-u-goosadka inay sameeyaan ficilo ka dhana Iiraan iyagoo tuhmaya inay isbedeshay jihada dabayshu u socoto. uma muujin doono wax dulqaad ah xaalad kasta oo doonista caynkaas la xiriirta. Larijani waxa uu sheegay in ciidamada Iiraan si buuxda gacanta ugu hayaan xaaladda istifaac ee waddanka iyo ka hortagga isku day kasta oo ka dhana xuduudaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah. docda kale Mareykanka lafahantiisa ayaa beeniyay qorshaha la wariyay in Trump ku doonayo hubaynta kooxahan Kurdida ah ee gobolka. afayeenka aqalka cad Caroline Levitt ayaa laga xigtay xogaha sheegaya in madaxweynuhu qaatay go'aankaas isaga ah waa waxba kama jiraan, mana ahayn in qaabkaas loo dhigo. sidii caadada ahayd, Mareykanku guud ahaan dagaaladii uu ku galay gobolka Bariga Dhexe waxa ka dhashay kooxo ama isaga taabacsan oo uu si cad u kaalmeeyay si uu uga adeegsado fulinta maslaxadaha Washington ama qaar aan la hubin la jirkooda Mareykanka balse la tuhmane ahaa. haatana waxaad moodaa in xaaladdu isla jidkii hayso oo waqooyiga galbeed ee Iiraan ilaa xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Iiraan ayaa lagu warramayaa in laga yegleelayo kooxaha Kurdida ah PAK ilaa PKK oo Israa'iil qorsheynayso inay labada doocoodba waa Turkiga iyo Iiraan colaado cusub furimahan ugaga furto sida xoguhu tibaaxayaan.